madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo galabta ka qayb galay ciyaar aad u qurux badan oo ka dhacaysay garoonka kubadda cagta ee magaalada Burco ayaa abaalmarino kala gedisan guddoonsiiyay kooxihii iyo ciyaartooygii abaalmarinihii ay mutaysteen. ciyaartan oo ahayd midda ugu muhiimsan ee ciyaaraha tartanka gobolada Soomaaliland dhinaca kubadda ayaa waxa ay galabta si toos ah Lamse Stadium ee magaalada Burco ugu dhaxmartay gobolada Maroodijeex iyo gobolka Hawd. kumanaan dadweynaha ayaa goobjoog u ahaa ciyaartan oo si toos ah u daawanayay halka in ka badanna ay si toos ah ugala socdeen daafaha dunida iyagoo ka daawanayay telefishinka qaranka Soomaaliland iyo waliba kuwa madaxa bannaan. madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo oo xaddi iyo tiro badan ayaa iyaguna ku sugnaa garoonka Lamse Stadium ee magaalada Burco. kooxaha baanbooda iyo waliba fanaaniinta walaalaha Togdheer Band ayaa iyaguna ku soo bandhigay fantasiyo ka turjumaya ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka iyo waliba kuwa ciyaaraha. madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa ka hor intii aan ciyaartu bilaaban waxa uu istaagay heesta qaranka oo ay tumayeen fanaaniinta baanbooda. bilowgii ciyaarta ayaa waxa uu ahaa mid degan oo ku bilaabmay jawi degan iyo waliba dardar ciyaareed oo kulul iyagoo labada gobolba soo bandhigay ciyaar aad u heer sarreysa. weerar celis ayay ciyaartu ahayd isku dheelitiran oo ay soo gudbinayeen ciyaaryahanada u tartamaya ciyaartan kama dambaysta. qaybtii hore ee ciyaarta ayaa laacibka weerarka uga ciyaara gobolka Maroodijeex ee wali lagu magacaabo Cabdiriyaad ayaa waxa uu u saxaxay goolka madiga ee guushu ku raacday gobolka Maroodijeex ee maanta u horseeday inay hantaan koobka gobolada Soomaaliland. qaybtii dambe ee ciyaarta dadaal ballaaran oo ay soo muujiyeen ciyaaryahanadii u ciyaarayay gobolka Hawd kumaysan guulaysan inay wax gool dhaliyaan waxaanay guushu sidaas ku raacday gobolka Maroodijeex oo tan iyo galabta ugu dabaaldegayay garoonka Lamse Stadium guusha ay gaadheen. madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa markii ay ciyaartu dhamaatay waxa uu abaalmarino kala duwan guddoonsiiyay iyo waliba koobab ciyaaryahanadii ugu xirfadda wacnaatan intii uu koobka gobolada Soomaaliland uu ka socday gudaha magaalada Burco hadday tahay dhinaca akhlaaqda dhinaca ciyaaraha iyo waliba guulaha ay soo kala hooyeen gobolada Soomaaliland dhinaca orodada iyo waliba koobabka kubadda cagta iyo kolayga. jawiga garoonka kubadda cagta waxa uu ahaa markii ay ciyaartu dhamaatay mid si rasmi ah isku bedelay iyagoo taageerayaashii ciyaaryahanada gobolka Maroodijeex ay ugu dabaaldegayeen iyagoo ku kaliyeystay garoonkan maanta. farxadda iyo damaashaadkuna waa midda kaliya ay ku taamayeen. inkastoo madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo uu maanta guddoonsiiyay jaayisooyin tiro badan ciyaaryahanada iyo xulalka gobolada balse waxaa hormuud u ahaa gobolka Maroodijeex oo koobabka kubadda kolayga iyo kubadda cagtaba isagu kaalinta koobaad ka galay kuna guulaystay inay koobabkaasi u hantaan gobolkooda iyo shacabka ay ka yimaadeen. halka gobolka Hawd oo markii ugu horeysay noqonayo gobolkiina inuu ka soo qayb galo tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland uu nasiib u helay isagoo ku soo bandhigay ciyaar xirfadeedu sarreyso inuu kaalinta labaad ka galo koobabka kubadda cagta iyo kubadda kolayga.
ciyaartoygii ugu wacanaayo koobka gobolada Somaliland intii uu socday ayaa waxa la siiyay laacibka lambarka 10 u qaata gobolka Hawd oo lagu magacaabo Haybe ciyaaryahanka magaciisu garoonkan isnacaanka ka noqday Kofinda ayaa isaguna waxa uu qaatay abaalmarinta gool dhalinta isagoo qaatay abaalmarin kale oo ah goolkii ugu horeeyay tartankan inuu aftaxo Cabdisalaan oo ahaa kabtanka gobolka Sool oo lambarka 5 u qaadanaya ayaa isaga iyo xulkiisa gobolka Soolba waxa ay ku guuleysteen abaalmarinta anshaxa iyo waliba akhlaaq wanaaga tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland sida rasmiga maanta ku soo taariikhda gobolka Maroodiya oo isoo noqday gobolka ku guuleystay koobka horyaalka gobolada Soomaaliland ee dhinaca kubadda cagta iyo waliba kubadda kolayga orodada laftigooda waxa ku guuleystay orodka ugu badan gobolka Maroodiya waxa xusid mudan in gobolka Maroodiya uu maanta ku soo bandhigay garoonka Alensi Stadium magaalada Burco ciyaaraha soo bulshada gobolka Togdheer daawanaysa iyo madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdi ballaaran oo hogaamiyay gobolka Hawaii soo dhaweeyay sidoo hadaba koobka gobolada Soomaaliland maanta lagu soo qabtay gudaha magaalada Burco koobkii labaad ee ku guuleystaan gobolka Maroodiya waxaana ay dhinac dhigeen gobolka Togdheer oo isagoo hore ugu hogaaminayay koobka gobolada Soomaaliland oo lagu soo horeeyay Cabdisataan Sabri telefishinka qaranka Soomaaliland garoonka Alensi Stadium magaalada Burco madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo ka hor intii aanu ka qayb gelin ciyaartaasi kama dambaystahayd ee kubadda cagta waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay magaalo madaxda gobolka Togdheer ee Burco iyo meelihii kale ee uu soo maray oo ay ka mid ahayd magaalada Sheekh dadweyne aad u tiro badan iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee deegaanadaasi uu soo maray Thank you.